أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان آدي آدو السلام يا أصحابتك وحرم ولا أشهد فردوس تساني وحان لي وكم هسنتهين أصحابت عصوان ومهد علينا يا سونا دوادان ليهي أصحابتي حرى يقولات شان قاطين وحان ليهي إذن كلفتقون آد بان إذن كمهد علينا يا وحان ليها داد أركتان كليب كيغا وسبسكرايب لاقي يا شير يا كومنتي انتو بو وديري قلين وانا شروطها يوتيوبك waxaan aad iyo aad aan maanta waxaan video baan isdii bahalkii live baan soo galay live-kii anoo ku jira asxaabtii oo dhan ii heelantay soo wada galeen qaarkood ayaa waxa dhacday inuu igaba tagay ba khadkii aan ku shaqeynayay live-ka daatana iguma jirin inaan baxana waan ka yara wahsaday dabadeetana sidaas uu iga baaqay muxuu ahaa live-kii hada video baan iska duubanayaa insha Allah biidhnillah horta waxaan u mahad celinayaa intii waxaan ku wadi live-kaygu intuu gaadhay share gareynaysa aad baan uga xumahay waxa dhacay waxaana leeyahay sorry anigoo mardhoof yani mardhoof waad garanaysaa qofka shaqadani markay ugu horeeyo shaqo qurux badan ma keeno shaqo qabyaa uu keenaa iyo waxa kale igu dhacay anigoo de ku cusub live-ka oo iska qabiya tahay qofkuna markuu shaqadu ku cusub tahay shaqadiisu waa wada qabiyo iyo waxa iga tagay korontadii marbay tagtay haddana khadkiiba iga tagay ma sha Allah tabarakallah dhaata waxaan sida ku shubo way suuro gal weeyday xitaa dhaatada jaam ahayd markaas asxaabta waxaan leeyahay waan idinka raali gelinayaa live-ka inaga xumaaday mar kale insha Allah maalin kale inuu bahaleyn doonaa maanta insha Allah biidhnillah waxaan ka hadli doonaa xaaladan soo korodhay marba wixii social media ku jira inuu focus ka saarnaa maanta waxaan horta dadka waxaan la yaabanahay horta sixirkii saddex shay muxuu noqday sixirku markii koobaad sixirkan dadka miyaa dadka waxa ay dadku dareemayaan inuu yahay wax xun oo qofka waa lagu taagagaraynaya ama waa lagu caayaya oo kale ma dadkii waa sixirkii ka baqaaya maxaa soo kordhay hebel baa la sixiro maxay marka waxaan ka hadlaynaa youtube-ka liicaato waxa weeyaan waa wiil Soomaaliyeed oo youtube-ka ku jira youtube-ka waa youtuberada waaweyn oo de horumarka gaadhay maasha Allah tabarakallah wiilkaasi wuxuu ahaa wiil aad wax fiican horta ku soo bandhigi jiray inta badan waxaad arki jirtay isagoo hooyo ooyeysa oo ilmeynaysa caawinayay hooyooyinka jilicsan hooyooyinka codkooda meel sare gaari karaynin ayaabuu intuu u hadlo codkooda meel fog gaarsiin jiray si loo soo caawiyo hooyo bugta ilmo ka bukaan adduun la-aan hayso waxaasoo dhan samafale adigu wax kaliya kuma garatide samafale cabdimaalig baynu baranay ilaahay isagana carabkaan ku dhufanay xabsigaa kasoo daayo wuxuu ahaa samafale oo kale wiilkii wuxuu soo galin 2 bilood meelahaas 2 bilood ama 2 bilood wax ka yar ayaanu soo galin dad waxa jira iska uur xumo tashiila dadkuna haday noqdaan uur xumo tashiil dad badan way isku diraan oo dad badan bay isku diraan dad badan way isku diraan calool xumana way abuuraan waxa jira dad uur xumo tashiila oo social media marka ku jiray waxay yiraahdeen runtii waxay yiraahdeen liicaato waa la sixray waa caynkan war horta sixirkan ilaahay ku qoro mooye wax kale kugu ma dhacayaan adigu sixirkan aad ka baqaysa ama dadka ku fadeexadaynayso halka inaga dhig clip hore aan lahaana waxaan ka hadlay wuxuu ahaa sixirkii hawlihiisaas sixirka uu jira laakiin hadaabad u haysato ilaahay baa wax dila ilaahay baa wax nooleeya ilaahay baa wax waala ilaahay baa wax ilaahay kugu samayn karo mooyaane inaan wax kale jirin ilaahayna inaguma sababeeyo oo de sabab ilaahay noogama dhigo marka waxaan arkayay dad badan oo waxay ku leeyihiin liicaata la sixray waxa sixray hebel waxa kale oo sixray hebel waxa weeyaan ilaahay quraankiisa wuxuu ku cadeeyay oo uu ku sheegay wuxuu yiri أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ورياتعل وحنطة اسكو دركا وحيابها صدق قرانك إلهي كهذي كيبا تعل ولالكي
oo meyda inuu meydkiisa cuno keebaa jecel qof jecel ma jiro maanta walaashay ama walaalkay oo dhintay meydkooda cun haddii laygu dhahdo way adag tahay waa marxalad halkii u dambeysay dadka aad ku xamanaysaan aad leediin hebel baa sixray heblaayaa sixirtay idinku meeshii lagu sixray meydaan joogin war ka digtoonaada waxa aad isku diraysaan oo aad fitan iyo xumaan aad dhexdooda kala dhigaysaan waa laba qof oo walaalo ahaa laba qof oo isku dhowaa laba qof oo isjeclaa maxaa kuu diiday inta aad naxliga iyo xumaanta abuurayso in aad abuurto wanaagga inaad abuurto maxaa kuu diiday laba walaalo oo kala fogaa inaad isku soo dhaweyso xataa haddaad been u sheegayso iskugu soo dhaweynayso beentii la xaraantinimeeyey ayaa lagu leeyahay haddaad wanaag dhexdooda dhigayso waa la ogol yahay marka aad leedahay haddaba ma isweydiinay liicaata muxuu ku maqan yahay aniga maanta waxaan islahaa leef qorshahayguna meel buu ahaa qorshihii rabbina dee ayaa kasoo horreeyay waxaan rabay inaan leef la soo galo asxaabta igu xidhan halkaa aynu ku wada qaraaxaysano way suurogeli weyday maxaa igu yimi waa cillad farsamo maxaa ka og tahay liicaato inay cillad farsamo ku timi maxaan ka ognahay adigu ma ogin mana sheegi kartid mana sababayn kartid waxaan ku dhacay maxaad ka og tahay inuu kamaradiiba ka jabtay ilaa waxaan aalad baa waxbaa lagu soo gudbinaya waxa weeyaan electronigu haddii uu kaa xumaado maxaad wax ku soo gudbi waxaad soo gudbin kartaa ma jirto ana maanta waxaa isla caruurta dugsi ii joogta intay dugsigu kuu joogaan halkana kasii shaqayso guri waa shaqo youtube-ku shaqadaadaa wado waxa ii saamixi waaye inaan shaqadaydii wato waxa weeyaan aaladaha electroniga telefoonkii baa mar dabku kaa dhacaya kamarad la-aan baa kugu dhacayso way kaa jabaysaa birta aad ku qabsanaysaa kaa jabaya waxaan ku yidhi qadkaa iska tegaya dhaataad waayi kartaa nalkaad wax ku duubaysaad waayi kartaa waxyaabo badan oo waxaa jira cillad farsamo oo imanaysa sababta u maqnaaday oo keliyata ha ka dhigina meelo kale uu kasoo maqna xaala xitaa ugu dambeysay waynagii arkaynay clip isagu leef uu leeyahay baa lasoo daynayay oo youtube meelo kale laga soo daynayay youtube-yo kale uu kasoo muuqday qofka la sixray markaa youtube-kiisana miyuu diidayaa youtube kalena miyuu kasoo muuqanayaa markaa youtube-ka waxa weeyaan xitaa haddii ay xayaysiiska ay cillad kaa gasho dee qofkuna uu daalaya lacagtii kasoo galaysay isagoo maanta raba inay lacag ka shaqeeyo haddii lacagtii ay farsamo xumo ku dhacdo iyada laftigeeda cilladi ku timaado qofkii wuxuu odhanaya maxaan ka daalanaa ayaamahanba lacag kamaan heline taana wuu odhan karaa marka inta aad dadka naxliga iyo xumaanta dhexdooda kala dhigaysaan ee aad leedihiin walaalkii xitaa wiil walaalkii ah ayaad carabka ku dhufanayseen wiil ay ehelkiisa ah wiil ay meel kusoo wada koreen waa isku dir waa namimin laa yadkhulu janna namaam janno ma galo iska daagelisa xitaa ma urinayo qofka namaamka ahi social mediaha mar walba waynu ka hadalnaa inaynu kaga faa'iidaysano gabadhu waxay ka samayn kartaa lacageedoo gurigeeda dhex joogta wiilku wuxuu kasoo faloogiyo uu kusoo diyaarsan karo lacag buu ka samayn karaa aaladan lacagta ka soko oo ka wada wanaagsan oo fursada ugu qaalisan maanta waxa weeyaan adiga oo wanaag kusoo tabiya wax wanaagsan aad soo tabisa wixii wanaagsanaana lagaa aqbalo oo haddii dee lagaa aqbalo lagaa maqlo xasanaad iyo ajar baa kugu jirta waar ay sida wanaagsan uga aaladan aan youtube-ka uga faa'iidaysano yaan la isku dirin liicaato wax ku dhacay ma ogin dadka kale saloolanaya ee dadka kale fadeexadaynaya ee dadka kale ceebeynayo ilaahay ka cabso ceebta aad walaalka ceebeynaysid ka daa ilaahay baana isaga dembigiisa ilaahay baa uu la hortagaya hadduu dembi galay adigu ma xisaabinaysid manaanad arkaynin markhaatina ma noqon kartid waxa aanad arkaynin markhaati kuma noqon kartid liicaato isagaa kasoo hadli doono waxyaabaha uu ku maqan yahay waa mashquulsan yahaa laga yaabaa dadka aad ku diraysaan iska daaya walaalahaad isku diraysaan iska daaya sixirkanaad bariisanteen aad leedahay hebel baa la sixray hebel kalaa la sixrayna iska joojiya sixirku waa shay aynu ognahay laakiin ha aaminin adkaarteedii iyo ducadeedii iyo professionkiisiina akhriso laakiin waxaan aad caqiidadii aad bahalaysateen iska daaya
waxaan idinkaga tagaa waxa weeyaan waa walaashiin oo idinka leh waxaan idin leeyahay waa mar kale iyo isku soo noqod dambe oo xiiso leh caafimaad qabna ilaahay hadduu ina gaarsiiyo insha allah waxaan idinkaga tagaa waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu